always. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلينا وانا هلينا تبرو ما هي أبتي مخايد داير اللي قاها ليو. Anyway, hello, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. isku soo noqod wanaagsan meel kastood ku sugan tihiin iyo waqti kasta idin tahay waxaan idin rajaynayaa nabad iyo caafimaad kuna soo dhawaada barnaamijkeena maanta muuqaalkan gudihiisa waxaan idinkugula wadaagi doonaa macluumaad laga yaabo inaadan hore ogeyn laga yaabana inay lama filaan ku noqdaanba ma dheerayn doono waan soo koobi doonaa muuqaalkeena soo koobnaado marka imika iyo haatanna gudaha haynu ugu daadegno muuqaalkeena maanta watahay haddaba macluumaadka ugu horeeya ee laga yaabo inaadan hore ogeyn sidoo kalena laga yaabo inaad hore ogeyn ayaa wuxuu yahay bal hadintaan gudaha u gelin su'aalanka weydiiyo ma isleedahay YouTube si degan ayaad u isticmaali kartaa meel kastoo daafaha dunida kaga nooshahay haddii aad YouTube hortay midaas madaxa kaga jirto imika maskaxda ka saar dalka China waa ka mamnuuc YouTube wax kale oo YouTube ay ka isticmaalaan hase ahaatee YouTube waa ka mamnuuc haddii aad China tagtid oo istiraad Google ku qor youtube.com halka intaan la gaadhinba Google laftiisa ayaanad ugu tagayn search engine-ka dhan ee Google waa ka mamnuuc gabi ahaanba gudaha dalka China intaasi oo kaliya maaha Instagram ugu tagi maysid WhatsApp ugu tagi maysid Facebook ugu tagi maysid oo waxaasi oo dhan bedelkooda waxa isticmaalaan programyo iyo applicationo ay ayagu samaysteen Facebooka bedelkiisa waxa isticmaalaan application ay ku magacaabaan WeChat TikTok iyo barnaamijyo ayaga gaar ah ayaa isticmaalaan sidoo kale Twitter waa ka mamnuuc Wikipedia waa ka mamnuuc search engines kan bamase mareegaha wax laga baaro malaha waxaad ugu tagaysaa Yahoo iyo DuckDuckGo waxaasi oo dhan aad isleedahay daafaha dunida oo dhan ayaga ugu haysta dalka Shiinaha oo bilyankii kor u dhaafay ugu tagi maysid malaha dadka qaarkood ayaa applicationadaas ayagoo isticmaalaya VPN si kale waxaasi oo dhan waa ka mamnuuc sababtuna waxay tahay waa dal horumaray dhaqaale ahaan la tartamaya wadamada reer galbeedka oo aaminsan inuu soo kaga horeeyo marka waxay dhahdeen maadaama aynu bilyankii kor u dhaafnay intaynu ummado kale u camiri lahayn annagu maynu camirano aynu samaysano meel aynu ku wada sheekaysano wax ku xaysiisano aflaanta ka daawano Netflix iyo waxaasi ugu tagi maysid Shiinaha waa sababta labaad sababaha ay u diidaan aaladaha sidaan soo tilmaamay waxa kamid ah arrimo dhinaca ammaanka ah ma rabaan shacabkooda inay dawlado kala jaajoosaan way jiraan programska reer galbeedka qaar ay aqbalaan kuwaasina waa kuwa u hogaansana shuruucda dalka Shiinaha u yaal hello haddii mid kamid ah jabiyo salaamo albaabka laga soo xiranaya waa tahay midda labaad haynu u gudubno wiilkani idin muuqda waxa lagu magacaabaa Sam oo wiil u dhashay dalka New Zealand haddaba wiilkani idin muuqda yaraantiisii waxa uu ahaa daftaf leh nooc meel kasta faraha galiya waxba aan ka cabsan ee jecel wax waliba inay faraha la galaan why kale waxaan xaqiiqatan ka shidmayaa wajigayga miyuu saameynaya mararka qaar ma waxa isu bedelayaa casaan guduud hello come on man iga qaleeno yalkeeda waan iska wadana waxa dhacday maalin maalmaha kamid ah wiilkaasi lagu magacaabo Sam asagoo la socda saaxiibadii ayaa waxa dhacday inay arkaan xayawaan yar oo ayar iska gurguranayo socday xayawaankaasi snail miya lagu magacaabaa geesole miya adigu xayawaankaasi yar haddaba waxa dhacday mid kamid ah asxaabtiisii uu la socday ayaa waxa uu yidhi carbalkii neerag ah oo awood u yeelan kara in uu naga soo dhaxbaxo oo noolahaasi yar afka gashado deetana liqo cuno Sam ayaa nimankii ka soo dhaxbooday oo yidhi aniga jooga aniga ayaa cunaya ninragaad kala sheegaya waa aniga waa qabtay noolaha yara gidigiisa afka gashaday waa cunay bismillah noolaha yara kama hadlinba waa uu soo qabtay oo ka dhaxsiibo sidii naaladii oo kale waa uu siibay haddaba maxaa dhacday haddaba intaasi kadib maxaa dhacay meeshii bay isaga tageen waxba maanu dhicin meeshii bay isaga tageen laakiin maalmo kadib ninkii Sam ahaa ayaa waxa uu dareemay jilbaha oo aad u xanuunaya lugihii jirkii oo yacni sameynaya xanuuno aan weli hore isugu arag waxa uu sir malaha xoogay waa garaac yar way si ka bogsanayaan oo waa iska dulqaatay hase ahaatee xanuunkii waa sii siyaaday ilaa uu markii dambe dhakhtar tagay wiilkii asaga ahaa markii uu dhakhtarkii tagay dhakhtarkii waxa uu wiilkii u sheegay in uu ku dhacay cudur loo yaqaan rat lungworm disease oo ah bacteriadaas xaga ka soo raacday waxay ka soo raacday noolihii yaraa oo liqay sidee okay ana ku fahansiin bacteriadan asal ahaan waxay ku dhacdaa jiirka maskaxda ay kaga dhacdaa deetan jirkiisa dhex ka shayla caloosha gaadha deetana waxa dhacdaa jiirkii inuu saxaroodo haddaba noolaha yarina waxa dhacda inuu saxaradii jiirka tul tago deetana cuno markii uu cunana bacteriadii waxay galaysaa caloosha noolihii amba geesoolihii yaraa deetana wiilkii markii uu liqay
ayaa bakteeriyadii jidhkiisiiba gashay dee xayawaankaas aad ay holis badan yihiin la iska ilaaliyo ayaa wanaagsan sidee iska ilaalin karaya muxuuse annaga nagu saameyn karaya haddii magaalada joogno wuxuu nagu saameyn karayaa waxaa dhici karta inuu dul maro ambaba se cuno tamaandhooyinka iyo khudaarta na soo gaadha haddii aad si fiican isaga mayri weydo iska karkarin weydid cudurkani waa ku saameyn karaa haddaba sam maxaa ku dhacay sam waxaa ku dhacay in bakteeriyadii jidhkiisa gashay ay u sababto inuu gebi ahaanba wiilkii yaraa ordayay ee afhafta lahaa uu ku dhaco stroke ambaba se cudurkani aynu u naqaano faaliga ee qofka u diidaya inuu xubnihiisii dhaqaajiyo inuu awood u yeesho inuu xubnihiisii dhaqaajiyo wiilkii waxa uu ku dambeeyey inuu xataa kici kari waayo xataa dhaqaaqi kari waayo kursi lagu riixo curyaan noqdo in muddo ah ayuu xaaladaas si adag ku noolaa maalmihii ugu dambeysay ee noloshiisa waxaa dhacday inay cisbitaalkii uu ku jiray ay kusoo booqdaan asxaabtiisii maalintii la socday ee ku dhiirigeliyey inuu noolahaasi cuno wakhtigaasi tabaru ku dhaqdhaqaaqo maanu lahayn xataa maanu lahayn awood uu ku hadlo xataa maanu hadli karayn balse maalintaasi waxa uu si la yaab la u fiiriyey ninkii maalintaasi ku challenge gareeyey ambabase ku xujeeyey inuu xayawaankaasi cuno aad ayuu wejiga uga fiiriyey wax waliba uu ninkaasi ka odhan lahaana indhihiisa ayaa laga akhrisanayay adigu wiilkii ugu dambeyn cudurkii ayuu u geeriyooday waa tahay haynu u wareegno macluumaadkeena saddexaad in maanta idinku hay barnaamijkan waa dalka loo yaqaano waqooyiga Korea aad iyagu dharagsantihiin marar badan waad maqasheen ayadoo waxyaabo fara badan laga sheegayo oo aad u cajaa'ib badan annaha idinka sii dabageeyo waxyaabo laga yaabo inaadan hore uga ogeyne dalka waqooyiga Korea marka ugu horeysa haddii guriga aad ku jirtid ee ku nooshahay uu dabqabsado ambaba si ay dhibaato soo gaadho waxyeeladaasi haddii aad awood u leedahay aad ku badbaadisid waxa kugu laazima oo kugu khasaba waxa ugu horeeya ee badbaadinaysid waa sawirada dadkii hogaamiyaasha iyo madaxdii soo maray dalka waqooyiga Korea ee gidaarada sawiradu ku dhajisnaayeen inaad badbaadisid marka ugu horeysa kugu laazima haddii guriga gubanayo intaadan caruurtaadii badbaadin xaaskaaga badbaadin alaabaha ka badbaadsan waxa ugu horeeya ee ku khasban tahay inaad badbaadisid waa sawirka madaxweynaha amba madaxdii dalka soo maray ee gidaarada kugu dhajisnaa haddii kale adiga ayaa u guban doona sidoo kale dalka waqooyiga Korea waa ka mamnuuc aflaanta ajaanibta heesaha ajaanibta Chris Brown iyo Justin Bieber iyo sheekooyinkaasi lagama yaqaano waqooyiga Korea haddii lagu arkana xukunkaagu waa dil sidoo kale dharka lagu labisto jeemiska waa ka mamnuuc dalka waqooyiga Korea jeemiska jirka ku dhajisan iyo sidoo kale saraawiishan googo'an ee ka jeexjeexan bawdiyaha iyo jilbaha waa ka mamnuuc dalka waqooyiga Korea waxa ka oranayaan waxaasi googo'an adeer xaadu xidhan gaajada iyo baahida inta laga xagee ka soo raacday sidoo kale dalka waqooyiga Korea waxa jira habab gaar ah oo dawladdu ogoshahay in ay shacabku u xirtaan hababkaasi sawiradooda ayaa waxa ku dhajisan yihiin gidaarada ra'iislayaasha habkaasi hab ka duwan uma xiran kartid waa ka mamnuuc sidoo kale xataa haddii aad tahay dalxiise dalka waqooyiga Korea dalxiis u tagay waxa ka mamnuuca inaad u xiratid sida madaxweynaha oo kale haddii kale shaqo aad u adag ayaa laga qaban doonaa oo aad ka qoomeyn doontid haddaba gabi ahaan daawadayaal muuqaalkeena maanta halkaasi ayuu ku egyahay waxaan rajeynayaa inaad wuxuun ka faa'iiday fadlan haddii aad muuqaalkani ka heshay adiguna ku sharaf liked iska soo fasax bahasha sidoo kale arrinta farxadda leh ayaa waxay tahay channelkeenani Mufahmi waxa uu u dhawaaday 100,000 talow ma laga yaabaa intaanay bishaasi dhammaan inaynu 100,000 gaadhno haddii qof waliba idinka mid ah oon channelkan weli subscribe hore u saarin oo imika subscribe saaro waxa hubaal ah way gudaheeda inaynu ku gaadhno 100,000 marka hore inuu soconana khayr fara badan ayaan rajeynaya sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu weligaa mar casaan isu bedel mar madow isu bedel casaan ودي عيار سامانتا كاميرا دي وادي والي سا waxay sidani